xiddigan caanka ah ayaa mowqif la yaab leh ka qaatay hooyadiis kadib markii uu ogaaday markii ay uurka ku siday in ay damacday in ay iska soo riddo. arrin la yaab leh darteed ayuu uga joojiyey in ay daawato ciyaar kasta oo uu isagu dheelayo. waxa uu diiday in uu guri u gado isaga oo awooda haystana malaayiin dollar. muuqaalkan waxaan daaha uga qaadi doonaa xiriirka qarsoon ee Cristiano Ronaldo la leeyahay hooyadiis. maalin ka mid ah maalmaha ayaa haweeney la yiraahdo Maria ay dareentay daal iyo wareer fara badan. goortii ay dhakhtarka iska soo baartay ayuu u sheegay war farxadeed. waxa uu ku yiri waxaad leedahay uur, balse warkaasi iyada ma farxad gelin marnaba. iska badaa inuu farxad geliye, waxa uu ku ahaa dareenkeeda uur musiibo ah. iyada iyo odaygeeduba waxay ahaayeen kuwo aad faqiir u ah, haystana 3 carruur ah. saas darteed ilmaha soo socda waxa uu qoyska ku noqon doonaa culays aad u weyn oo aysan xamili karin. waxay go'aansatay Mario in ay ilmahan ay uurka ku sido iska soo tuurto. waxay aaday isbitaalka waxayna ka dalbatay in ay ku sameeyaan camaliyad ama operation ay ilmaha uga soo tuurayaan. nasiib darro mise nasiib wanaag baan dhahnaa. dhakhaatiirtii waxay u sheegeen in aysan ka qayb qaadan doonin dambigaas, ayna samayn dooninna wax operation ah oo ilmo lagu soo ridayo. isla habeenkaas waxay go'aansatay Mario in ay iyaduba ka takhalusto uurkan iyadoon wax caawinaad ahba ka dalban dhakhaatiirta. kadibna waxay aaday kalaab waxayna cabtay xaddi aad u badan oo khamro ah. intaas kadib si ilmuhu uga soo dhaco waxay oroday masaafo aad u dheer, kadibna dhulka ayay ku dhacday daal dartiis. waxaas oo dhan ee ay samaysay ilmaha uurka ku jiraahi wax dhibaato ah ma soo gaarin. waxay Maria xaqiiqsatay in aysan ilmahan soo ridi karin, waxayna go'aansatay in ay iska dayso. markii ay dhashay ilmihiina waxa isbedelay dareenkeedii. markii ay kor u qaadayna waxay dareentay damiir xumo. waxay ka shalayday in ay damacday in ay soo riddo. Maria waxay bilowday in ay shaqayso habeen iyo maalinba si ay u awoodo in wiilkeedu raaxo ku noolaado. maalmo badan ayay gaajo ku seexatay si ilmaheedu u dhargaan. Cristiano yaraantiisii markii uu ku biiray mid ka mid ah naadiyada waxa uu u baahnaa kabaha loogu talagalay ciyaaraha. kabuhuna waxay ahaayeen kuwo aad qaali u ah xilligaas, waxayna u ahaayeen shardi muhiim ah in uu ka soo baxo qofka ku biiraya naadiyada kubadda cagta. sidaas darteed hooyadiis waxay ku khasbanaatay in ay nadiifiso wadooyinka maalintii oo dhan muddo usbuuciyaal ah si ay u iibiso kabahaas. ugu dambayn si dhib ah ayay ku awooday in ay u iibiso kabihii una rumayso riyadiisii ahayd in uu helo kabahaas qaaliga ah. caawinta hooyadiis darteed Cristiano waxa u suura gashay in uu noqdo ciyaaryahan laacib ah oo weyn. waxay soo jiidatay hibadiisa kubadda cagta kooxaha waaweyn ee kubadda cagta sida Manchester United iyo Real Madrid. 20 sano gudaheed ayuu magaciisa oo dahaba ku qoray taariikhda kubadda cagta. dhaqaalihiisuna waxa uu kor u dhaafay wax ka badan $1 bilyan. ma uusan ilaawin Cristiano wanaagii iyo dadaalkii ay hooyadiis u fashay, mana noqon nin u abaalgudi waayay hooyadiis. waxa uu go'aansaday in uusan guri u iibin ee ay isaga la noolaato inta ay ka nool yihiin, asaga oo og in isagoo uu ku jira damacday in ay ka takhalusto, balse waa uu cafiyey asaga oo saxaafadda u sheegay in hooyadiis ay yaraantiisii wanaagyo fara badan u samaysay. oo muxuu u xasuusan hal wax oo xun asagoo ilaawaya 1000 samafal. Cristiano hooyadiis wax walba waa ay uga muhiimsan tahay, asaga oo go'aansaday in uu xiriirka u jaro gabadha dharka xayeysiisa ee Irina Shayk, isagoo u sababeeyay arrintaas in ay hooyadiis u xumayd. markii uu ugu yeeray xafladda dhalashada hooyadiis way diiday inay soo xaadirto. si kasta oo uu Cristiano u jecel yahay shaqadiisa, balse hooyadiis ayuu ka sii jecel yahay kubadda cagta lafteeda. maalin ka mid ah maalmaha ayaa lala soo xiriiray loona sheegay in hooyadiis ay ku timid koomo oo maskaxda dhiig uga furmay. isla markaas Cristiano waxa uu ka tagay tababarkii naadiga uu ku jiray, waxaana uu u safray hooyadiis oo Boortaqiiska ku sugnayd, isaga oo garab joogay ilaa ay ka soo baxaysay isbitaalka iyada oo nabad qabta. isagu waxa uu ugu tabarucay $100,000 oo abaalmarin ah isbitaalka ay ku jirtay hooyadiis, maadaama uu yidhi waxa ay badbaadiyeen nolosha hooyaday. markaas ayuu go'aansaday in aysan hooyadiis dib dambe u soo xaadirin ciyaaraha uu ciyaarayo, waayo hooyadiis aad bay u xamaasadoon jirtay, taasina nafteeda khatar bay ku ahayd. hadda hooyadiis waxay barbaarisaa carruurtiisa ay ayeeyada u tahay, waayo waxa uu doonayaa in carruurtiisa loo barbaariyo sidii isaga loo soo carbiyey. sidoo kale waxa uu ku dadaalaa Cristiano inuu hooyadiis siiyo hadiyado markii ay muddo joogtaba si uu u farax geliyo. maalinta hooyada adduunka ayuu hadiyad ahaan u siiyey gaari qiimihiisu gaaray $100,000. waraysi uu bixiyey ayuu ku sheegay, hooyaday wax badan bay u hurtay aniga dartay. waxay seexatay iyada oo gaajaysan si aan anigu u dhargo. guulahan xaqiijiyey hooyaday ayaa sabab u ah.
qisadani waxay ina baraysaa in uusan jirin koonkan dhexdiisa wax ka weyn oo ka naxariis badan qalbiga hooyada. waa boqoradda tabardarrideenna u beddesha awood si aan u wajahno caalamkan adag ee aan naxariista lahayn. fursadaha aadka qaaliga u ahi qofka 2 jeer ma soo maraan, sidaas darteed ayaan hal hooyo u leenahay. daawadahan sharafta badanow, haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, hanala dhaafin subscribe-ta, like-tana nagu dhiirigeli. mahadsanid.